السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو حاشي قسلايا oo ku hadlaya magaca ama shacabka reer Djibouti dhalinta waliba gaar ahaan ma garatay marka waxaan halkan dhambaal uga dirayaa mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dhambaalkaas oo ah inaan wadanka ku go'nay oo shaqo la'aan aan taaganahay marka waxaan ka dalban lahayn shaqo inuu na siiyo tiisiina laba cisho ayaa ka hadhan mise laba sanaaba ka hadhan mooyi saacadaaba ka hadhan hadday doonto marka tiisu intayna gaadhin intaasaan ka dalbanaynaa soo maydaan garan haddii kale mudane madaxweyne ilaahay baan kugu daynay haddaad na daryeeli weyd waayo adaa naga mas-uule hadda adaa naga mas-uule maadaamaad naga mas-uul tahay ilaahay ka sokow inaad dhalinta ama dadka aad ka mas-uul aad tahay inaad wax u qabatid ayaa lagaga baahnaa mudane madaxweyne adaa noogu wacan tiifta naga muuqata faqriga naga muuqda marka ilaahay ayaan kugu daynay haddaad naga soo gaari weydid shalay toole unbaa la lahaa jandaaran baa la qaadayaa booliis baa la qaadayaa moodaaga unbaad kusoo dhiganaysay soo maa iminkii haatanna waxaan kaa dalbanayaa inaad ilaahay ka sokow maadaamaad naga mas-uul tahay inaad naga soo gaadhid shoomeernimada waayo tiifta naga muuqata waa shoomeernimadaasoo ah lacag la-aan mustaqbal inaan samaysanaan doonaynaa shaqo ma hayno reer haddaad dhaqo istiraadid reerkii wuxuu kaa doonayaa shaqo midda koowaad midda labaad lacag horteed waxba laba tallaabo ma qaadi kartid waxbaba qaban kari maysid